بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مال كستا جوجتين ninkan ila hadlayo waa baqaqaan waxaan leeyahay hastala victoria sempre qaqayaasha meel baa joogteen jirka saddexaad waxaa mahadle alle maanta waxaa soo dhammaaday khilaafkii mooshinkii laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka oo si wanaagsan sharaf leh isku casilay jawaari laakiin waxaan doonayaa casilaadii jawaari inaan wax ku darsado iyo kasoo hadlo arrintii lacagtii imaaraadka iyo wixii laisla wareegay shacabka soomaaliyeed meel kastaa joogtiin sidaad ogtihiin siyaasadda soomaaliya shaaricay taallaa waan is wada garanaynaa halkay ku socoto iyo masiirkeeda dhibta jawaari keliya maaha iyo xildhibaanada dhibta ugu weyn waddanka waxa weeyaan waxaa jiro cadaalad darro waxaa jiro corruption musuq maasuq aada u weyn baahi weyn ah waxaa jirto dhib weyn waxaa ka dhacay awaaro waxaa ka dhacay qarax waxaa jiro terrorist waxaa jiro failure state waxyaalo badanaa jiro maaha in lagu wareego jawaari wuu guulaystay iyo waa loo hambalyeenayaa iyo wuu iscasilay iyo danta dalka iyo danta dadka ayuu ilaaliyey jawaari weligii danta dadka iyo danta dalka ma ilaalin jawaari dadku u dhashay shacabku u dhashay waa dulunsan yihiin waan wada garanaynaa digili miriflaa dulunsan shabeellaa hoosaa lagu dulunsan yahay markaa lagu dulunsan yahay baraha waa lagu dulunsan yahay banaadir lagu dulunsan yahay meel baa lagu dulunsan yahay musuq maasuq iyo wax walbaa jirto booskiisuu ilaashanayey wuu kusoo shaqeeyey tooginimada lagu heesto maxaa dhacay ka bilaaw madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ra-iisul wasaaraha golaha cabinetka xildhibaanada aqalka sare xildhibaanada aqal hoose giddi waa dad musuq maasuq iyo corruption ku jira shacabka soomaaliyeed waxaan maraynaa marxalad xun mooshinkan mana ugu horeyn mana ugu dambeeyo waxaanu gelaynaa hadda marxalad kale oo lagu dagaalamayo guddoomiyaha baarlamaanka ninka naqanayo oo lacag lagu bixinayo waxaa la keenayaa inaan booska u qalnayn waxaa kaloo haddana imaanaya mooshin laga keenayo madaxweynaha mooshin laga keenayo kheyre mooshinkan waa wax sii socdo waxa waaye shirkad immobiliyaar ah oo xildhibaanada ay guryo ku gataan lacag ka sameeyaan raggii hadlayay iyo qalalaasaha waday iyo kuwii kale mooshin ka keenay intoodaba wax isma dhaamaan waa dameeray labadooda dhigo dulmiga maanta waxaa ka jiraa baraawe shabeellaha hoose meel walbo gobol walbo daan walbo iyo madasha iyo madaxweyneyaasha gobolada iyo meel walba dulmi baa ka jiro waan ognahay soomaaliya marka waxaan shacabka soomaaliya kula talin lahaa annaga horta waqtigeena wuu dhammaaday ilaahay qaatimadaa noo hagaajiyo laakiin waxaan la hadlayaa dhalinyarada jiilka saddexaad ee qaqaanyaasha ubadkeenna ah waxaan oranayaa integrate gareeya hijradiina ha naqato to aada waxbarataan to aada dalalkaad joogtaan wax la qaybsataan maraykankaa ujeediin wuxuu ku dhisan yahay irish wuxuu ku dhisan yahay dad yurub ka tegay meelba ka tegay maanta deer america qaqaanyaashu waxaan oranayaa hasku wareerinayna siyaasad soomaaliya siyaasad ma jirto integrate gareeya waxbarta qof naqda ibni aadan naqda dalalkaad joogtiin wax la qaybsada ardardullah maanta soomaaliya astaan bay u tahay is-casalkii jawaari maa astaan dimuqraatiya ah waa astaan in soomaaliya dulumka iyo qaladka uu meel marayo xildhibaanadii hadlayay dadka isku soo baxa dhahaya ee kaalaya dhahaya ee baarlamaanka badbaadiya ee wax badbaadiya waa aragteen hadalkoodu wax lagama soo qaado sababtana waxaa keentay waxaa weeyaan rag diaspora iyo maryaana meesha joogo shacabka muqdisho joogo waa wada tuugo waa moryaan guryo haysta dib u xisaabin ma dhicin dadka hantida dowladda haysta lama xisaabin waxaa laga hadlayaa is-cafis yaa la cafinaya waxaa la cafinayaa tuugada bakaaraha iyo dadka magaalada haysta iyo nimankan siyaasiyiinta marka waxaan shacabka soomaaliyeed usoo jeedinayaa soomaaliya bad luck qof waxaa haysto mujrimiin soomaaliya ma jirto siyaasad ma jirto sinaan ma jirto cadaalad ma jirto horumar ma jirto waxqabad ma jiraan iskuulaad ma jiraan isbitaallo shacabku dad jiro maaha waa barakacsanayaan marka arrinkan jawaari ee la buunbuuninayo
waan la socday jawaari inuu iscasilayo. jawaari wuxuu qabsan kara wuu qabsaday. waa nin da ah inuu nasto u baahan yahay. ragga kale ee hadlaya maanta ee showga dhigaya xamaro lagu baahan oo hoosto baarlamaanka lagu baahan baarlamaanka jajaban ee garbaatiga xiranaya showga dhigaya xildhibaanada hadlaya labada xildhibaana hadlay ee george armaniga gashan shacabkana baahan yahay mooshinkana lacag badan ka helay waxaasoo idil markaad isku dartid waxa weeyaan waa riwaayad socotoo la matalayo waa xildhibaano qooto qoota ah hore loo sheegay waa dowlad qooto qoota ah farmaajona waa beenlow khayrana waa beenaale kale oo igu sawir ah. marka soomaaliya waxaa ka socda showspiel waxaa ka socda igu sawir. soomaaliya ma hagaagayso 50 sanoo dambe ma hagaagayso intay raggan joogaan. aqalka sare waxaa ku jira dad mujrimiin ah, aqalka hoose sidoo kale mujrimiin, dad corruptor ah, dumar corrupted ah, dadaan dhaqan lahayn, dadaan hiddo lahayn, dad isku laaqan barlamaankii yahay baarlamaan riwaayad lagu dhigayo lagu haysayo waxyaalo badan. haddana waxaan galaynaa inay boqolaalo kun oo dollar ku baxdo calimasaarka guddoomiyaha baarlamaanka ee cusub. tan kale ee lacagta imaaraadka ah, imaaraadka waa dowlad heebad leh ee waddanka soomaaliyana wax badan u qabatay, ciidamo u dhistay. lacagtaana waxay ku sheegtay inay tahay mishaarad ay ku bixinayso ay siinayso ciidamada puntland joogo iyo ciidamada muqdisho joogo. qoraal baa generaal soo qoray. lacagtaa waxaa leeyahay ciidamada soomaaliyeed. imaaraadka uma baahno inay dad korab garayso, uma baahno soomaaliya inay qalalaaso ka dhisto. hanti badan bay gelisay. waxay dhistay safaarad weyn, horumarka soomaaliya wax ka qaadatay. waxay dhistay isbitaallo daway keentaa, waxay keentaa mucaawinaday keentaa. marka waa siyaasad baayaq ay dowladda leedahay. waxaana laga duminayaa imaaraadka. dowladdani waa dowlad dunsan, qof duminayo male. raggeedaa duminayo, raggeedaa musuq maasuq wado, raggeedaa wasaaqo ku jiro, wax walba ku jiro. marka waxaan oranayaa keliya aan ku darsanayaa in shacabka somalilan ay maantu kuwaana qaataan ay arkaan waxa muqdisho ka socdo inay soomaaliya aan laba reer kala nahay keliya maahan, laba reer qowmiye kala nahay maahan, laba dowladoodaan kala nahay. isku dhaqan ma nihin, isku hiddo ma nihin, afkaa naga wada dhexeeyo. waa sidii afka faransiiska ee ka dhexeeya afrikada dhan, afku waa caadi. laakiin soomaali isku dhaqan weligeed ma naqan, isku caado ma naqan, isku dabeecad ma naqan. soomaali waa dad been ku nool, waa dad been sheegayo, waa dad tuugnimo ku nool, waa dad qarax ku nool, waa dad ku nool boob, waa dad ku nool inay show dhigaan, waa dowladaan jirin, waa dadaan la dooran, one man vote ka dhicin. waxyaalo badan baan ku kala duwannahay ee muuqda. marka waxaan leeyahay jawaari wuu istaahilaa in dhulka lagu jiido. xataa iscasilidiisa wax qiimay leedahay male. markii waxaa la wadaa muqdisho waan ku dilayaa, madaxaan kaa jarayaa, janaasadaadina waan kugu dukanayaa. nin fiican u ahaa jawaari, nin fiican ma ahayn. waan ognahay shabeellaha hoose wax ka dhacayo. wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose. weligii shabeellaha hoose kama hadlin, weligii dulmiga kama hadlin. maanta waxaa u saftay waa moryaantii habargidir oo shabeellaha hoosto meel walba haysto wax dulmaysay. marka dulmigaa soomaaliya weligeeday ku jiraysaa. ninka ugu horeeya oo isbedel haddii la doonayo la rabo in waddanka uu run kusoo noqdo waxaa weeye in mooshinka laga keenay madaxweyne farmaajo uu hirgalo. waa in farmaajo la casilaa, waa in kheyre la casilaa, waa xildhibaanadii badnaa ee waxaa sheegay la casilaa. soomaaliya waxay ku badbaadi kartaa iyadoo inqilaab dhacdo, iyadoo shacabka shaarac usoo dego, iyadoo toorad dhacdo oo shacabka hadlo. laakiin waayo shacabkii hadli kara tuug ma xisaabiyo. muqdisho waxa ku nool waa wada tuugo. aqaladii dalka haystaan waa dad tuugo ah, waa dad xaaraan haysta. bakaaraha xaaraan ku dhisan yahay. dalka soomaaliya suu u dhan yahay wuxuu ku dhisan yahay xaaraan. sadaqo mucaawinaaday cunaan, wax walbay cunaan. waa dad soo tashtay, waa dad shaqaysanayo, waa cabinet iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ajnabi ah baasbooro kala wato, ubadkooda dibadda joogaan. waxyaalo badanaa soomaaliya jiraan nii sheegaya. marka waxaan leeyahay aasif maanta taariikhdu waxay dhigaysaa inay soomaaliya aysan siyaasad ka jirin, inay soomaaliya dowlad failure tahay, inay soomaaliya weligeed horumarin, weligeedna horumari doonin, oo dulum badan dhiig ku daatay xamar. waxaana jiro in aad degan tihiin aqaladii dadka lagu dulmay, dadka lagu kufsaday, hooyo lagu kufsaday, hooyo lagu burburiyey. maantana raggii waxaa sameeyey waxay ahayd dowladda maxamed siyaad bare. dagaalka markuu dhacay iyagaa ugu horreeyay boobka, iyagaa dadka laayay, iyagaa la laayay, iyagaa cararay, wax walbaa dhacay.
showsbill wey cabdibilaa tagay waa la ordayaa inan yaroo dacasiisan oo gaajaysan oo ordaya iyo kan waxa weye adduunkaa lacag looga cunayaa iyo fiifi meelbo marka waxaa leeyahy shacabka soomaaliyeed maaha jawaariyaa iscasilo waa dimuqraasiya jawaari baa iscasilay waxaa iscasilay nin howlgab ah waxaa iscasilay ninaan shaqayn karin waxaa iscasilay ninaan dadkii wax u qaban waxaa iscasilay nin isagaba ka mid ahaa joogtii dalka joogtay wuu iscasilay ha tooba keeno ilaahay ha u noqdo xisaabtiisa ilaahay u taalaa laakiin dhibta ugu weyn waxa weeyaan dowladda farmaajo uu madaxweynaha u yahay iyo ra-iisul wasaare kheyre madaxweyne u yahay ayaa dhibta soomaaliya haysata ah daabaan kusoo gabagabaynayaa haastala victoria sempre qaqaayaasha annagu nabadda waa jecelnahay laakiin nabaddu maaha dulanimo nabaddu dulanimo maaha waxaa la doonayaa min maa yaguulu alxaq shaydaan akhlas nabaddaad haysatiin waa nabad ay haystaan nimankan xildhibaanada iyo madaxda iyo ciidamada isku ilaalinaya nolosha ay haystaanna waa nimankan canshuurta cunaya ay tuugtahay wax walba nabad iyo nolol shacabka soomaaliya ma haysto wax u sameeyena male wax u samayn doonana male shacabku asay gacantii ku jirtaa inuu isxoreeyo uu towrad dhaliyo uu jidka usoo dego uu mudaahiraado iyagii xisbiyada mucaaradka haastala victoria sempre qaqaayash mac salaama